kulanti wacan kusoo dhawaada waraysi gaar oo aan la yeelan doono Sheekh Yaxya Raabi oo ah sheekh Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ee degan dalka Britain laakiin socdaal safar ku jooga dalkan Australia gaar ahaan magaalada Melbourne. Sheekh Yaxya waxa uu wax ku bartay magaalada London ee dalka Britain isagoo halkaas ku dhameeyay xifdinta Quraanka Kariimka iyo tacliinta Islaamiga. Waxa uu socdaalo ku soo kala bixiyay ilaa iyo 3 qaaradood marka lagu daro tan Australiana ay noqonayso 4 qaaradood. Yaxya waxa uu ila joogaa stuudiyaha Somali TV ee magaalada Melbourne. Ustaad Yaxya ku soo dhawow stuudiyaha Somali TV ee magaalada Melbourne. Marka hore safarkaaga bal noogu sheekay halkee soo martay Melbourne see ku soo gaartay. Jazakumullah khair waan dhawahay. Alxamdulillah waxaan ka soo bilaabay Ingiriiska ayaan deganaa London. Ingiriiska ayaan ka soo baxay December. waxaan tagay umro Sacuudiga 2 usbuuc ayaan joogay kadib waxaan u sii gudbay dalka la yiraahdo South Africa asaan toban beri ayaan joogay safar dacwo aan tagay mu'tamaraat ayaan ka qayb galay kadibna waxaan u sii gudbay dalka Qatar ayaan joogay ilaa 10 casho kadibna Melbourne ayaan soo gaaray Australia marka waxaan soo martay Europe iyo Asia Africa qaaradda marka America la ku wartay 5 qaaradood America la dhiman Melbourne ka waran bal markii aad timid iyo markii hore fikirka aad ka haysatay magaalada Melbourne horta Melbourne aad baa laga sheekeeyay rag asxaab oo magaalada degan ayaa aad iga warameen marka inta imaan ka hor wax badan ayaa la sheegay runtii marka imaadana wax badan aan ku farxay waa arkay jaalada muslimka meesha degan masaajid dhistaan iyo weyninkooda iyo sida isku xiriiraan dadka sida isku jecel yihiin sida isku dhex jiro يعني خير بدأ كمقضاء هذا برامج الدعوية ماشي كودي محاضرات كقصير لو سوق جلاي دكسي خير كوتشعليه خير كسلو صح حاضرة الحمد لله يعني خير بدن أيانا كورنا dhalinyarada ka waran Melbourne iyo dhalinyarada Europe waa soo aragtay maxay kala duwan yihiin asalaadahay والله runtii dhalinyarada horta dal yani galbeed joogan ama dalka qurbaha iska joogan waa isku mid inta badan waxay ku mid kiihiin media ayaa wada yani isku wada xiraayo kulligood marka waa la isku bigarina waa la isku dayan marka runtii wax badan ay isku duwan yihiin oo isku mid kiihiin aan ka wada laakiin at the same time na waxa maxal dhahay waxa muuqata Australia marka imi wax badan ayaa ka dambeysay caalam kale khayrka dalo fiiriyo wax badan ayaa dhiman oo meelahaas Ingiriiska iyo Mareykanka jiro shartana wax badan ayaa wali soo gaaray maadaama adduunka fogtihiin oo يعني waxaan ku qiyaasay ilaa 10 sano waa ka dambeysay caalamka يعني ingiriiska muddo ku nooleed dabcan aniga laftirka ingiriiska waa deganaa waan aqaanaa xagga markaad fiiriso dhalinyarada dambiyada oo kale iyo markaad isbarbar dhigto Australia dhalinyarada joogtay maxaa ku baxay macnaha xagga dhalinyaro badan ayaa xabsiyada ku jiro saan ognahay halka ku yar yihiin dii kale waxa laga yaabaa inaynan gaaraynin xataa ma garanaysaa waddanka dhan marka la isku daro tirada arimahaas oo kale maxaa talo oo siin lahayd dhalinyarada Soomaalida ee Australia ku nool gaaraan runtii waxaan kula talin lahaa in cibrad laga qaato oo dees laga qaato maadaama arimaha dhibaatada wali soo gaarin in laga hortago oo hadda wax laga qabto oo isku diyaariyo laana xatman way soo gaari doontaa marba soo gaari doontaa intay imaan wax laga qabto hal isku diyaariyo dhibaatada sidii ugu fideen oo ugu faafin mujtamaca marka nin dhalinyaro tahay adiga naftirkaaga dabcan dhalinyaro tahay waa tahay dhalinyarada ku dhex jirta saaxiibna waa la tahay aadna u xiiseeyaan runtii muxaadarooyinkaaga iyo ma garanaysaa markii YouTube-ka laga fiirsaday markii live ba ay ku arkaanba ma noqon kartaa marka role model ama inay kugu daydaan ma kula talisaa in ma garanaysaa dhalinyarada qaar ay والله runtii dhalinyarada aniga waxaan jecel lahaa inay ku daydaan nabiga iyo asxaabtii dadka akhyaarta culimada laakiin aniga waxaan isku daynaa in akhyaartaasi dadka khayrka lagu yaqaan inaan ku dayno laakiin طبعا qofka dhalinyarada ah inuu ku daydo dadka akhyaarta ah oo dadka lagu yaqaano salaaxa iyo wanaaga طبعا waxay diinta faraysa waay diinta ayaa nagu boorinaysa inaan ku dayno dadka sida oo kale ah marka طبعا la shak yani in qudwaadkaas oo kale lagu daydo wax wanaagsan صح محاضرooyinkii Melbourne ama Brisbane hadda labadaas magaalo tagtisaan umaleena iyo Sydney maxaa kaaga baxay wallahi waxa iga baxay in dadka ooman yihiin oo aad iyo aad lagu baahan yahay barnaamijyada oo kale runtii waxaan kula taliyay dhalinyarada la kulmay in mashaariic dacwi oo tacliimi ah oo socdaan oo joogto ah oo dadka dhisayo
in loo qabto oo loo sameeyo laanna muxaadaro loo jeediyo waa iska temporary qofka waxa laga yaabaa inuu wax saameyn ku yeesho laakiin saameynkaas waa iska temporary waa iska dhamaan laakiin wax socdo joogto ah ayaa saameyn oo long term ah qofka yani ayuu ka heli marka taasaan kula talin lahaa laakiin khayr badan ayaa arkay alxamdulilah marka waxaa ka wadaa in ay jirto muxaadarooyin joogto ah dhalinyarada loo sameeyo muxaadaroon joogto ah macaahid diini ah dadka diinta uga bataan yani tacliin ayaa loo baahaya oo joogto ah waxaan arkay hadda waad aragtay masaajidka weyn oo Soomaalida amsa oo kale halkan Soomaalida masaajid badan ku taala tacliintaas marka in la joogteeyo maxaa marka kula talinaysaa wadaadada Soomaalida halkan jooga iyo dadka jaaliyada iyo maxaa tala u soo jeedin lahayd oo ku saabsan waxaan aragnaa Soomaalida horta waxay ku dadaalayaan quraanka la xifdiyo dugsiga in carruurta dugsi la geeyo meel walba adduunka joogno dugsi ayaan ka asaasnaa carruurta dugsiga ayaa la geeyaa quraanka xifdiyaan laakiin ardayga markuu gaaro 15 ama 14 wuxuu moodaa dugsiga waan ka weynaaday uu ka hari marka maxaa loo hayaa ardayga 15 markuu gaaro markuu 16 markuu gaaro maxaa loo diyaariyay ma jiro barnaamij oo ka qayb gali karo ama meel uu tagi karo oo ku baran karo diintiisa lagu xusleeyahay dugsiga carruurta lagu tagay nin weyn ahay waa in loo diyaariyo macaahid diini ah oo dhalinyarada da'daas joogaan يعني لو واحد لو برا أنا هذا لن تصل أهان أنا جو معهد كاس أيام واحد كسبرت معهد والله أساس لأنه كيا معهد بدل لي هذا أو دايرداس أو دوكسية سيستم كيس كسوين هذا أو أكاديميك ويسي جامعة دي سكول كواحد لو دقنا واحد لو برايو دينتي أيام كسبرني بأذا أيام تعلاني دينتي أيام تعلاني مركا الحمد لله أدب لو فائدة رنتي إنك هذا هوفردي أو يعني أنت يرتوي لهاي برا ودكو يعني جالسينايو معهدكاس ayaan ka soo faa'iiday marka macaahidtaas oo kale in la asaaso muhiim oo tacliintaas la joogteeyo macahadkaas aad ka soo baxday Soomaali ma lahayd Soomaali ayaa asaaseen sax Soomaali ayaa asaaseen saddex wadaad oo jaamac islaamiga ka soo qalin jabiyeen ingiriiska markay yimaadeen waxay arkeen baahida runtii jirto oo mujtamaca qaba macahad isugu jiray xifdin quraan iyo tacliinta islaamiga wax kulli carabigan ku barteen carabi lana ku bartay quraanka macahadkaas aan ku xifdiyay علومة الدين إنه هكذا سنكون برتي 5 سنة ما عاد كديجنا 5 سنة سنة كسد حدا أفراد ما تجين ماي لدنا كبرتي سنة كسد حد ما عاد كان برا ما أفراد ما عاد وحا منهجك وحا كمد أها أرضي وإنه بلاوة إنه واحد نجو لأنه حكوا برنا دينتي وبرتي إنه دك جارسيو إنه دك برا إنه دك سوق جارسين لها يعني سكيلز كلو بهية أيوك فائدة مركا runtii dacwada taasaasan ayaan ku soo galay macadkaas ay runtii aad iyo aad uga faa'iiday macadka macallinka noqday ardayda macallimiin noqdeen ardayda hadda macallimiin noqdeen annaga hadda macallimiinta ahaa waan ka fariisanay waxaan galnay taqaacud retirement ardayda eega macadka maamulan eega wax ka dhigaan sidaas ayuu ku socdaa marka mashaariic sidaas oo kale in laga asaaso Australia iyo adduunka meel walba Soomaalida joogto la soo saaro dhalinyarada on kaliya ay noqonin in quraanka on kaliya la baro laakiin tacliintii iyo wixii halkaas ay ka socoto dad la soo saaro tacliintii iyo wixii halkaas ay ka socoto dad wadanka fahansan luqadda wadanka fahansan dhaqanka wadanka fahansan wadanka wax ku barteen diintooda ku barteen sida dadka loo soo saaro oo u badbaadeen dhalinyarada la mid ah iyo mujtamaca dhan marka sidee la isugu wadi karaa marka macadkaas hadda oo kale hadii la sameeyo ama adigoo macadkaas dhiganay waxbarashadii kale oo maadigana ka war ma dhiganaysa waxbarashada maadiga dhiganay macadka sabti xadda kaliya tagi jiray shanta beri kale oo kalena iskuulka caadi aan tagay laakiin waxaan nasiib waxaan u yeelanay culamadii waxaan u dhageysay masaajidkana noo dhawaa ayay duruusi xalaqaad ku lahayn oo extra ah oo aan tagi jirnay iskuulka ka soo baxno قلبتين تيجي جرني حلقة القرآن كشيخ كآخر جري دروس كلا أو حديث أو فقه وحين ماشي أقول يجي جرني ما عاد كان سبتي أحد الصباح ده تيجي جرني مركب ولا واحد سكوي أنا وما دقة دقنا هاي سكول وان قلب جي إلا جامعة هي جامعة هذا إنجليز كاري حبرت أنا جو صحافة ده مرتي ما شاء الله إعلام صحافة ده مرتي مركب جامعة ده وإن دتك أوجادا مريمي هدي أوجادا دقدي ولا سهلة يا ماشي إلا قريب لكن لندن جامعة سووا بحي حدنا وحنا قال الجامعة الإسلامية لندن كتالو كلية شريعة قالي شريعة نكتي كده إن ماجستير أو قدوي ماسترز مركب وحي كتوسي سقفك لا يرضى ودك مال وبوتشوجا وكفاية سكر مادي ديني واللبن وكفاية سكر نعم وعي مركب waxaan joognaa Melbourne hadda waa si laaban doontaa kole Ingiriiska u socotaa fariinta aad u diri karto dhalinyarada ku daawanaysa adduunka meel kasta joogaan gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool maaha kaliya Australia
waxaa ka hadlaynaa America Yurub iyo meelaha ay joogaan maxaa fariin u diri lahayd waxaan u diri lahaa horta wax ugu muhiimsan la xasuusiyo waa cabsida Ilaahay number 1 kadib dhaqankeena islaamiga hawadina islaamigeena inaan ku dhagno qurbaha marka lagu nooyahay waxa dhaca inta badan dadka waxay isku dayaan reer galbeedka isku ekeysiyaan ama inay yani ku dayadaan wax ka fiican ama ka wanaagsan Ilaahay tabaaraka wa taala diintu noo soo dejiyay diinta islaamka lagu dhaqmo wax ka wanaagsan ma jiro sharaf ciizad adduun iyo aakhiro ilibaan waxa ku wareysa diintaada marka ku camal fashid diintaada marka ka dhigateen noloshaada qaabka u dhaqmaysa inay ka noqoto dhab ah sabab marka noqotay Ilaahay tabaaraka wa taala uu ku taageeri Ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu gaarsiina guul في الدنيا والآخرة مركا دينتي لبرتو دينتي نو سو جيسدو هذا الحمد لله انجليزك waxa ka jira xarako cilmi ah oo dhalinyarada aad bi hal duruusta iyo muxaadaradka u yimaadaan marka in meel walba la sii gaarsiyo oo meel walba ku faafa khayrkaas dhalinyarada si loo badbaadiyo insha Allah tabaaraka wa taala dhibaatooyinka iska badiyeen marka Ilaahay inoo sahlo aad baad u baasantahay kaasi wuxuu ahaa Sheekh Yaxya Raabi oo wareysi gaar ah kula yeeshay studio magaalada Melbourne ee Somali TV aniguna waa Ibrahim Umar Baafe nabadgelyo